iyadoo bilihii ugu dambeysay ay taagnayd xiisad ka dhalatay xuduudeynta ay dawladda Kenya ka wado degmada Beled Xaawe ee gobolka Gado isla markaasina maalmihii la soo dhaafay ay socdeen banaanbaxyo looga soo horjeedo ficiladaasi ay samaysay dawladda Kenya ayaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo hawlo shaqo ugu maqnaa dalka Kenya dibna ugu soo laabtay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa uu ka hadlay shirar ku aadan calaamaynta ay dawladda Kenya ka wada degmada Beled Xaawe gobolka Gado oo uu la qaatay madax ka tirsan dalka Kenya iyo kulamo iska caadi ah oo ku saabsan shaqooyinka Jubbaland oo ka dhacay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaana uu sheegay waxaan ku maqnaa magaalada Nairobi halkaas oo arrimo kala gedisan aan ugu qayb galay ilaahay baa mahad leh wixii aan la kulannay hay'adaha naga kaalmeeya arrimaha horumarka iyo samafalka dawladahan dariska nahay dhammaan wixii aan la kulannay oon ku matalaynay ummadda wax wanaagsan baan kala soo kulannay wixii aan la soo kulannayna golaha wasiirada ayaan la wadaagi doonaa iyo baarlamaanka waxaan ugu baaqayaa xuduudda labada magaalo Mandheera iyo Beled Xaawe ayaamahan muuqi ka taagnaa taasoo dawladda Kenya mas'uuliyiin ka tirsan iyo mas'uuliyiinta deegaanka baan ka wada hadalnay xallaan u raadinayna dadka inay isdejiyaan ogaadaan in xisaabtan uu jiro wax kastoo khaldanna la sixi doono haddii aan iska aragnay mas'uuliyiin reer Kenya ah waa ka wada hadalnay waxba khaldanna in la saxo oo wada hadal lagu saxayaan ku soo heshiinay dib baan ka faahfaahin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo sidoo kale madaxweynaha oo wax laga weydiiyay runta uu sheegayo shacabka Soomaaliyeed iyo waliba kan reer Jubbaland ee ku aadan xuduudeynta ay wado dawladda Kenya ayaa shaaciyay in arrintaasi ay u taalo dawladda dhexe ee Soomaaliya ayna ka gaabisay waa sidoo hadalka u dhigay runta xuduudda waa arrin weyn ugu hayso waajibaadka xuduudana dawladda federaalka ayaa iska leh waad ogtihiin inaan wafti ku tagnay sanadka hore aakhirkiisii balaaran dawladda federaalka ee anaga ka socotay waxay ahayd in guddi la qabto arrimahana dawladda Kenya lagala xaajoodo dhinaca dawladda dhexe ayay arrintaas ka biyadiisay khaladaadka dhacaya waajibaadkana dawladda dhexe iska lahayd dawlad goboleedka Jubbaland iyo shacabka halka ku dhibaataysanba isku dareen weeye hadalka madaxweyne ku-xigeenka ee maamul goboleedka Jubbaland ee ku aadan xuduudeynta ay dawladda Kenya ka wado degmada Beled Xaawe ee gobolka Gado isla markaasina uu ku eedeeyay in arrimahaas ay ka gaabisay dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmay xilli maalmihii ugu dambeysay ay socdeen banaanbaxyo looga soo horjeedo xuduudeynta ay dawladda Kenya ka wado degmada Beled Xaawe Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo